ibn aadankii ilaahayba ma qariyo, qofka wanaagsanna ilaahay ma qariyo, qofka xunna ilaahay ma qariyo. marka dumaro badanoo waxaa jira jacaylka ka cawda oo dhaho ninkiiba maaragtay been noo sheegay, na khiyaameeyey. marka way jiraan walaal rag xun. hablaha marka aad dawadan kimikada ay haweenku soo iibsanayaan sidee ku kala garan karaan horta marka hore inay dawadani damage gaarsiin karto iyo in kale? adoo may been baan sheegaha walaal oo igu dhacay jacayl wanaagsan baa igu dhacay, jacayl xun iguma dhicin. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba bahda Abraar Media soo dhawaada. maanta waxa aynu eegi doonaa barnaamij aynu kaga hadli doono kimikada ay haweenku marsadaan. waxa igu casuuman maanta barnaamijka hana soo dhawow marka hore aniga iyo daawadayaasha iskaaya barhani waa tuma. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبل مع سنتي ولا شيء باق. وأنا كده وهي أبرار ميديا. مقعي جوا هنا موسى جامع. كده لطي سومالان. كراهن مقالة هرقيسة. كنا بربارتي. هير سكول إلا سكندري إلا جامعات. إما كنا وحنا كشقية وسار دار ما بلشة. كراهن child protection. وهجاك. barnaamijkeena inuu sii wadan doonaa hana haweenkan marsada dawada kimikada maxay ku dhiirigeliya marka hore inay haweenku marsadaan dawada? horta hibaaqay jiilba jiil buu bedelayaa. dawadan in hablihii Soomaaliyeed ay maaragtay garanayaan faa'iido daradeedii. markii hore waxa la oran jiray yacni markaad dawada marsato maqaarkaaga bedelo qaybta quruxdii ka eegi jireen. marka imika waxaan filayaa inaad dawadii horta ay soo yaraato skin care la yiraahdo jira. marka horta berigii hore waxa ku dhaliyay waxay islahaayeen qurux ka faa'iid. marka qurux ahaan baan u maleynayaa inay faa'iidadoodu ahayd inay qurux bataan oo haweenka Soomaaliyeed dhaafaan mid ka sii qurux badnaato. marka aad dawadan kimikada ay haweenku soo iibsanayaan sidee ku kala garan karaan horta marka hore inay dawadani damage gaarsiin karto iyo in kale? horta dumarkeenu hadday wax barteen way garanayaan inay dawadan damage gaarsiinayso maqaarkooda. dumarka aan waxba akhrinayda hooyada oo kale aan waxba garanayno aqoon badan aan lahayn iyadoo qofka ay ka soo iibsato baa u amaanay. marka iyaduna qofkaas ma aaminaysa. laakiin qofka wax bartay 80% uu garanaya inay dawadan damage gaarsiinayso naftiisa. okay inta markaa quruxdan degdeg ee waqtigaasi raadinayso caafimaadkayga wax ma yeeli karaa? ها 100% way yeeli karaan. oo qofku hadduu marsado maqaarkaagii uu maaragtay bedelmo cadceedo kale uma adkeysan kartid. marka waxyaabo badan oo waxa jirta damage gaarsiinaya maqaarka qofka. okay maadaama dawadani qofku markuu marsanayo aanu cadceedii mari kareynin hablaha dawada marsada maxaad oran lahayd? yacni maadaama maqaarkooga jirku u dhimanayo maxaad tala siin lahayd? horta anigu haddaan talo walaalnimo siinayo waxaan oran lahaa gabdhaha Soomaaliyeed dawadu ma fiicna. ilaahay midabku ku dhaliyayna inaad bedesho maaha. sidoo alla ku abuurayna waa sidii ugu wanaagsanayd ugu qiimaha fiicnayd ugu qaayaa sareys. marka ilaahay sidoo ku abuuray abuurtiisa ilaahay bad ku gafaysaa. marka tira ilaahu imad qurux badnaysiin bay ka dhiganta. laakiin sida alla ku sameeyay hadaad isku dayso alxamdulillah rabbil caalamiin wax ka maqan ma jirto. marka dumarka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa waxyaabaha maqaarkiina dhaawacaya ama jirkiina dhibaato u keenaya ma qurux badna. dadka keenayana waxaan oran lahaa ka digtoonaada. qofkan dawada marsanaya dawadii damage jirkiisa gaarsiinaysa marka horeba wax dabiici oo oran lahayd hablaha ku bedesha halka ay dawadu ku jirto ha idin gasho jirta. hibaaqay dadku wala way kala duwan yihiin. hadba qofku maaragtay qaarba dadka imika 100% skin care baa la isticmaalaa oo waxa la yiraahdaa skin care baa maqaarkaaga ilaalinaya. laakiin taa bedelkeedu inagu ma fahansanin waxyaabo guriga inoo yaalo waxa jira qofku iska marsan karo
sida khudradda oo kale qofku maaragtay muuska oo kale waa la iska marsan karaa waayo maqaarka wax dhibaataa kuma yeelayo waxyaabaha naturalka gurigeena inoo yaala cuni karaynaba xataa waad marsan kartaa wejigaaga marka waxaan odhan lahaa anigu skin care-ka markaad ka timaado dadku waa qofba awoodiisa haddaanad awoodin waxyaabaha kale guriga kuu yaala dee adigu marso oo isku farsamayso laakiin dawadan kharash baa kaaga baxaya lacag baa kaaga baxaysa waxna faa'iido kuma qabtid marka waxaan odhan lahaa taa beddelkeeda waxyaabaha naturalka ee guryaheena yaala iska marsada inta badan habluhu dawooyinka isticmaalaan dhakhtar uma qoro qof khabiiri uma qoro okay saameynta ugu badan ay geysan kartaa maxay tahay maadaamuna khabiir qoraynin oo dhakhtar qoraynin dawada ay habluhu marsanayaan ee kimikada dawada saameynteeda hore waanigii usoo sheegay maqaarkanay damage gaarsiinaysaa qofkan maqaarkiisa markuu bedelamo oo dee ilaahay siduu ugu talagalay maahee uu maaragtay bedelo waxyaabaha imika oo kale waxyaabahan miidiyaha ku arkay waxaa jirtay dawooyin la walaaqayo oo maaragtay baaldiya lagu walaaqay inaad aragtaan filaya raggiiba xataa ku jira qofkii dawada walaaqayay galofis ma xidhna fariisi waa dheertii qofkii haddaad xataa u fiirsato oo istiraahdo bal hadda farihiisii iyo jirhkiisi waaba kala cadiyi marka taasaaba qofkii de tusaale ugu filanba waxaan maaragtay inuu maqaarka qofka dee damage gaadhsiinayo dawooyinkan ay haweenku jirka marsanayaan shirkadahan soo saarayo maxaa mas-uuliyadiga ka saaran waa mas-uuliyad noocee walaahi horta dee qofku walaal waa ganacsigu meeshuu kaa gala unbaa dee maaragtay dadkeenu 100% dee qaar ilaahay ka cabsanaya mooyaane intooda badan dee waxay ilaashanayaan ganacsigooda dee marka dadkan ganacsi baa ka gashay waxaan imika dee maqaarka bedelay in la keeno waxaa ka gashay ganacsiga marka taasaan odhan karaa weeyaan qofkan dee dakhligiisu eeganaya ganacsigiisu bili-aadankii ma eegayo marka qofku dee haddii uu bili-aadanimada eegayo ismuu odhan wax ka wanaagsan oo ka tayo badan buu soo saari lahaa hagaag sidee looga wacyigelin karaa dumarkan kimikada marsanaya si ay wax badqab lahay u isticmaalaan bas odhan kartaa wallaahi su-aasha waxaan kaga jawaabi karaa dumarku horta waxaa la odhan jiray dumarku ismada waxba iskuma ogolaanshihii marka laga yimaado inay wax isku sheegaan allahuma salli calaa maxamedey dee wixii xun ay hablaha kala taliyaan dee wixii wanaagsan laysfaro marka wacyigelintan aan u soo jeedin lahaa waxa weeyaan in dumarkeena wax bartay aqoonta leh waxaan garanaya inay faa'iido lahayn garanaya inay maaragtay dhibaato u keenayo inay maaragtay ay waaniyaan oo idhaahdaan walaal waxana kuma fiicno wax kale oo dee ka wanaagsan ba usoo bandhigaan oo idhaahdaan niyo kana ka wanaagsanee bal kan isku eeg labada qof ee iska dhow hadday imka saaxiibadaay oo kale dee dawo marsato ood adigu aanad marsanin dee inaad la taliso oo tiraahdo waxaana kuma wanaagsana waana moogtahay dembina way kugu noqonaysaa oo dee ilaahay siduu ku abuuray waad bedelaysaa yacnihii waxaan odhan karaa qofka u dhow wuu ku ogyahay inuu u sheego ku dhahda iska daa sidoo kalena dee qofku baraha bulshada oo leh oo dee maaragtay ka hadlo oo wacyigelin oo kale halkaa ka sameeyo hagaag hana sidee waalidiintu uga digtoonaan karaan hablahan yaryar hadda kimikada isticmaalaya walaal waalidiintan imika jooga mise waalidiintii hore waalidiinta imika jooga wax badan baa la fahansan yahay dee inanteeda way kala hadli karaysaa oo waxay odhan karaysaa hooye iska daa waxaan kuma fiicna future-kaaga uma fiicna ubadkaaga xataa hadhow aad dhali doonto uma wanaagsana hooyooyina waa hooyooyinkii hore oo waxba walaal lama fahansanayn dee hooyooyinkii hore intaasaan ka odhan lahaa iyaga dee waxba may fahansanayn laakiinse hooyooyinkan hadda jooga dee adduunkiiba imika miidiyu isku dhaafa wayna garanayaan wixii xun iyo wixii saxsanba marka hooyooyinka soomaalida waxaan kula talin lahaa inantaada haddii dawo marsato ka waani waxaan ka wadaa dee la tali marka talasii dhanka cibaadadoo kalena u jeedi oo de maaragta qofka haddaad xalkaa cibaadada kala hadasho tiraahdo qofku dee hooy iska cibaadayso iska daa waxaan kuuma qurux badna maybe inay iska dayn lahayd